waxaan wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka guusha ganacsiga oo ah barnaamij toddobaadle ah toddobaadkiiba maalinta jimcaha had ka daawataan channelka Job Skills iyo barteena Facebook toddobaadkan waa toddobaadkii ugu horeeyay aan bilaabayno barnaamijkeena guusha ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa hadii la yiraahdo 10 process for starting a business ama 10 qodob oo ganacsiyada bilowga ah la maro markii la doonayo in ganacsi cusub la abuuro tobankan qodob aad ay muhiim u yihiin hadii aad daneynayso soo qaado buug iyo qalin oo qoro mid walbana muuqaal gaar ah ayaan ka sameyn doonaa maadaama waqtiga uusan inoo saamaxaynin inaan tobanka processba aan halkan ku falanqeyno toddobaadyada soo socda ayaa mid u dul istaagi doonaa haddii la yiraahdo kusoo dhawaada barnaamijkeena guusha ganacsiga 10 qodob oo waxa jira loo maro marka la bilaabayo ganacsi cusub 10kaasi qodob waxa loo yaqaanaa starting a business process marka ugu horeyso aad doonayso inaad ganacsi bilowdo qodob koowaad wuxuu yahay waa inaad haysaa problem taagan oo aad doonayso inaad xaliso ama waa inay jirtaa fursad aad ka faa'iideysanayso waa qodobka koowaad meel ku qoro waa weyse problem soo aha taa bedelkeedu maxay heli kartaa problem bedelkiisa waxa heli kartaa opportunity oo ah fursad marka qodobkood wuxuu yahay waa inaad heshaa fursad ama problem jira waayeysa qodobka labaad wuxuu noqonayaa problemkii aad soo heshay ama fursadii aad soo heshay waa inaad u bedeshaa business idea ama fikrad ganacsi waa inaad u bedeshaa haddii problemkii aad ama fursadii aad soo heshay u bedesho business idea waxa taagan tahay stepkii labaad ee business process ama startup business process marka aad soo gaarto halkan waxa taagan tahay meel fiican marka haddii qof uu ku yiraahdo niyo waxaan hayaa business idea ama fikrad ganacsiyan hayaa koow waxa ka fiirsaa problem xalinaya business ideadan maya fursad ma ka faa'iideysanaysaa business ideadan oo qofkan kula yimid maya ma ahan business idea laakiin haddii problem ay xalinayso ama fursad taagan ay ka faa'iideysanayso waxaan leenahay waa business idea hal tusaale ku siinaa marka problem jira tusaale ahaan qolooyinka small businesska ama ganacsiyada yar yar waxa ay dhibaato ku qabaan wax loo yaqaan bookkeepingka ama in ay maanta oo dhan note gareeyaan oo ay gacanta ku qoraan wax walbo la sheego maxay yiraahdaa transaction kasta ee ganacsi ka dhaxdhaca ay qoraan oo buugtii ay fara badato oo dukaankii dhan wada buug oo noqdo buugii deynta buugii kaashka buugii badeecada marka la soo iibo lagu qoray problem jira waa Soomaa problemkaas waa aragtay koow problemkaas soo heshay marka muxuu noqonayaa marka business idea waxay noqonaysaa in la helo software xalinayo shaqooyinkan dadka ay dhibaatada ku qabaan marka aad sameeyso problemkii aad u bedesho business idea waxa taagan tahay qodobka labaad oo muhiim ah qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa create business plan waa inaad abuurtaa qorshe ganacsi xagee ka abuuraysaa waxaad ka abuuraysaa problemkii aad soo aragtay ee aad rabto inaad xaliso iyo business ideadii aad ka dharaandhirisay problemkii ama fursadii taagneyd qodobka saddexaadna waa in business plan diyaarsan professional ah dhinacyo badan laga soo shaqeeyay istiraatiiji iyo ahdaaf iyo processkii businesska loo mari lahaa oo dhan waa inaad diyaarisaa business plankaasna waxa uu ka tarjumayaa ama uu qeexayaa guusha ganacsigaada markaad business plan soo diyaarsato qodobka afraad wuxuu noqonayaa waa inaad heshaa ama dhaqaalihii aad ku bilaabi lahayd ganacsiga sidaan wada ognahay marka aan doonayno inaan ganacsi bilowno qodobka koowaad ee maskaxdeena kusoo dhacay wuxuu noqonayaa waxa la yiraahdo cash ama lacag aan ugu soo dhacayso laakiin qodobka koowaad ma ahan qodobka koowaad maxaa waaye in problem uu jira aad soo hesho qodobka labaad wuxuu ahaa in problemkaas aad fursad u bedesho ama business idea aad u bedesho qodobka saddexaadna waa in aad business plan ka diyaarisaa problemkii iyo business ideadii qodobka afraad ay wuxuu noqonayaa waxa la yiraahdo financial ama dhaqaale inaad u raadiso ama investment inaad u raadiso investmentiga iyo qaabka loo raadiyo iyaduna muuqaal dheer ayaan ka sameyn doonaa qodobka shanaad wuxuu noqon doonaa form of legal entity ganacsigaada noocee ayuu noqon doonaa ma ganacsi shakhsi leh ayuu noqon doonaa ma ganacsi partnership ayuu noqon doonaa oo dad badan ay wadaagayaan ma ganacsi corporation ayuu noqon doonaa what kind of your business nooca ganacsigaada uu noqon doonana waa inaad go'aan ka gaartaa waxayna ka mid tahay steebyada la maro marka la doonayo in ganacsi la abuuro qodobkaas sidoo kale waxa soo hoosgalayo haddii ganacsigaada uu yahay partnership oo ganacsi la wadaagay ama dad kala duwan ay leeyihiin uu yahay waa in agreements iyo heshiisyo iyo qaabka faa'iidada loo wadaagayo iyo qasaaraha markuu yimaado qaabka loo qaybsanayo waxyaabahaas oo dhan waa in lagu daraa business plankii ama qorshihii ganacsiga
loo dejinayo. qodobka lixaad wuxuu yahay build a team, waa inaad dhistaa team ama dadkii ka shaqeyn lahaa businesskaada. qodobkan aad muhiim wuxuu u yahay waa qodob la xiriira shaqaalaysiintii. waa inaad xulataa best people dad la hajir. best people waa dadka ugu wanaagsan ee aad inaad xulato ganacsigaadana ehel u ah. haddii aad mala awaal ama dad aan macnaha ehel u ahayn ganacsigaada aad keentana fashilka halkaas ayuu ka bilaaban karaa. so markaad rabto inaad shaqaalaysiiso dad, waa inaad dadkaas u eegtaa waxa ay ka qaban karaan ganacsigaada iyo waxa ay ka bedeli karaan. qodobka toddobaad wuxuu noqonayaa waa inaad samaysaa qayb ka mid ah productiga aad iibinayso ama serviceka aad rabto inaad bixiso. taas waxay kuu fududeynaysaa inaad sii tijaabiso oo aad testi kusii samayso productigan ama servicekan, si inta aadan iib geenin ama inta aadan suuqa keenin aad usii ogaato waxyaabaha uu ku liito, waxyaabaha uu ku fiican yahay iyo tartanka suuqa qaybta aad ka geli karto. qodobka siddeedaad wuxuu yahay waa inaad testi ku samaysaa ama aad tijaabisaa waxyaabihii aad soo saartay. qayb ka mid ah waxyaabihii aad soo saartay ee qodobka toddobaad aad ku soo saartay producti ama service tuu doona ha noqdee, waa inaad tijaabisaa. waa inaad u saartaa team dad horay usoo isticmaala barnaamijkan oo soo falanqeeya aad tiraahdaa. waa inay soo ogaadaan waxyaabaha uu ku liito, waxyaabaha uu ku fiican yahay productigan ama servicekan. kadib waa inay keenaan feedback. ugu dambeyna waa inaad xaliso problemkii ay la yimaadeen, si marka aad suuqa tagto uu u noqdo wax aan inaba caadi ahayn oo dadkuna ay markaas u iibsadaan. suuqaasna waxaad ku geli kartaa waxyaabo fara badan. marka waxyaabaha suuqa lagu gala waxaa kamid ah qiimaha price-ka lagu gala, waxaa kamid ah quality-ga lagu gala. marka shaygan marka aad testi kusoo samaynayso waxaad soo hubinaysaa quality-giisa iyo tayadiisa. qodobka sagaalaad aan kusoo qaadanayno startup business process wuxuu yahay market and promote your startup business. waa inaad markaas wixii ka dambeeya aad suuqa ku fasaxdaa oo aad suuqa geysaa productigii iyo badeecadii ama servicekii aad markaas iibinaysay, oo aad promotion iyo u samaysaa in aad sare u qaado oo aad markaas marketingkii iyo waxyaabihii la xiriiray aad iyaduna u samaysaa. qodobka tobanaad aan kusoo gabagabeynayno startup business process wuxuu yahay marka aad steebyadii aan soo sheegnay oo dhan aad soo xaliso, waa in markaas wixii ka dambeeya aad la socotaa ama miisaan saartaa ganacsigaada si aad u ogaato koboca iyo korriimada uu sameynayo ganacsigaada. waxaan rajeynayaa in qodobadani ay wax badan kaa caawin doonaan haddii aad dabaqdo ama haddii aad u raacdo sida ay yihiin. guud ahaan barnaamijkii guusha ganacsiga oon toddobaadkan kusoo qaadanay startup business process oo ah processka loo maro marka la bilaabayo ganacsi cusub, halkaas ayaan kusoo koobaya. waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.